الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن موسى بيحي عبدي قدوميها برلمانكا مدن باشا محمد فارح حبناها قولها وزيرده مرس شرفتا وفتي إثيوبيا ganacsatada iyo marti sharafta kalaba mudanayaal marweyn salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ku hadlaya afka rugta ganacsiga warshadaha iyo beeraha waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo carwadan lagu daafurayo hotel Grand Hadi taasoo ka turjumaysa wax soo saarka warshadaha dalka inkastoo rugta ganacsiga ay qaabisay carwooyin badan haddana nasiib wanaag tan maanta waxay khaas u tahay wax soo saarka dalka ee warshadaha waxaa runtii ka soo qayb galay carwadan 30 shirkadood oo kala duwan kuwaasoo waxyaalo kala duwan soo saara SBI oo iyadu sharaabta soo saarta shirkadda asli oo iyaduna saabuunta soo saarta ayaa ugu waaweyn shirkadaha ka soo qayb galay munaasabadan carwadan ayn maanta ka daafurnay hotel Grand Hadi ganacsatada maanta soo bandhigtay waxa soo saarka waxay ku dhiiradeen inay maalgashi geliyaan dalkooda intooda badan way ku guuleysteen inkastoo caqabado badan ay ka hor yimaadeen caqabadahaas oo ah inayna helin wax maalgashi lacageeda oo baanan ku badanaa in yar u qaysiyaan laakiin intooda badan kama helaan waxaa kaloo jirta inay xagga farsamadu aanay jirin xagga skill workerska leedaha ay weli aynu ka dib uga dambayno adduunka intiisa kale waxaan ku dhiirigelinayaa xukuumadda iyo ganacsatada ilaa iskuuladan conventional schools la iska daayo oo iskuulo farsamo la sameeyo si ay nooga soo baxaan dhalinyaro badan oo farsamo yaqaan wasleyda ugu dambeyntii waxaan inkastoo maxamed sheekh oo ah gudoomiyaha warshadu ka hadlay caqabadaha waxaan maadaama waqtigu nagu yari waxaan kusoo gabagabeynayaa oon u mahadnaqaya dhammaan ka soo qaybgalayaasha carwadan maanta inooga soo qaybgalay oy ka mid yihiin wafdiga ka socda Itoobiya oo si aad iyo aad u fiican oo qurux badan inooga soo qayb galay annaguna waxaan filaynaa inaan sidoo kale carwooyinkooda uga qayb galno waana ku mahadsan yihiin intaa ka bacdi waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo xafladan nagala soo qayb galay wuuna ku mahadsan yahay inuu carwadaasi inoo furo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh